waxa isa soo taraya ka hadalka dhacdadii dilka iyo kufsiga isugu jirtay ee lagula kacay Allaha u naxariistay marxuumad Caaisha Ilyas Aadan oo ahayd gabar 13 sano jir ah waxaana shir jiraayay magaalada Garowe si wada jir ugu qabteen xildhibaanad Sacdiye Salaad Samatar oo ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo Cabdullaahi Muuse Nuur oo horey u soo maray xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ay kaga hadleen arrintan مسؤولينتنا ayaa ugu horreyn waxay ka tacsiyeeyeen geeridii ku timid marxuumad Caaisha Ilyas Aadan waxayna Allah uga baryeen inuu samiriyo iimaanka siiyo ehelkeedii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala hooyadii dhashay ee ooyeysay hadlaysay horta samiriyo iimaan iyo family-ga dhan Allah ka siiyo midda labaad waxay noqotay murugo Puntland ay qaabishay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun tacsida waxa shikin gareynaya dadkii ilaa shalay tacsiinay oo Soomaaliyeed dhibaatadii ku dhacday Caaisha Ilyas Aadan oo habeen hore fal aad iyo aad u guracan dil waa la sameyn jiray kufsina waa la sameyn jiray labadaba ka gadisan oo fool xun lagu sameeyay magaalada Gaalkacyood Sacdiye Salaad waxay sheegtay in culimadu ay ku mashquulsan yihiin waxyaabo aan micno lahayn kana gaabiyeen ka hadalka waxa ugu xun ee bulshada ka dhaca sidoo kale waxay xildhibaanadu sheegtay in odayaasha dhaqanku ay iyaguna ka gaabiyeen doorkii ay ku lahaayeen arrintan oo aan leeyahay way ku cambaaraysan yihiin nimanka sheekhyada wadaadada ah waxa macnaha lahayn ka fadwooda waxa ugu xun oo dhacana aan ka hadlin waxaan halkaan iyagana aan ka cambaareynayaa aniga ana dhinacna uga leexanayn nabadoonnada isimada dadka mas'uuliyadda maalinka siyaasad jirto meel laga mara ma leh adduunka dhan oo Puntland waa laga yaqaanaa dhibaato marka dhacdana lama arko mideeda kale ayaga investor waxay yihiin dadka number 1 ah waa dadka odayaasha ah ayaga soo damiisha dambiilaha ayaga hortaagan ayaga wax ku qaata Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga baqo Puntland dhibaatooyinka ka dhaca ee fatahanka biyaha ku fatahama duufaamada ka dhaca wallahi masiibo kale inaysan ahayn cadaalad xumada aan qaabisheen oo aad dumarka ku sameeynaysan wayo waxaan leeyahay madaxweynaha baaq u soo jeedinaya nin aan diin ku aqaan weeye madaxweyne Dani waa inuu sharci degdeg ah ka soo sameeyo oo toogasho ku xukumo sababtoo ah kufsiga la caadaystay baa keentay in gabdhihii la dilo waa la dilaa hadda balday mideeda kale anigu waa ka seexan kari waayay waligay kama hadlo waa markii koowaad aan ka hadlo Cabdullaahi Muuse Nuur hore u soo noqday xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu sheegay in dhacdadani ay qalbi xanuun ku reebtay dad badan oo Soomaaliyeed sida ugu dhaqsiyaha badanna wax looga qabto sharcigana la horkeena dadkii ka dambeeyay arrintan runtii aan xalay ka seexan waayay oo aad naxdin u leh waa fal ku dhacay qof kasta oo Soomaali ah waa fal ku dhacay gabar kasta oo Soomaaliyeed waa fal ku dhacay waalid kasta oo Soomaaliyeed waa fal aad iyo aad u fool xun oo shaydaani ah oo wax uu lagu macneeyo iyo wax lagu fasiro midna la aqoon waayay oo waxyaalihii soo dhici jiray oo dhanka fool xun iyadana Ilaahay saqiir bay ahayd jannadiisii firdawsi ahayd ha ku irsaaqo waxaan ummadda Soomaaliyeed dhamaanteed u soo jeedinaa in isku meel looga soo jeesto waxaan ka rajaynayaa dawladda cusub oo uu madaxda ka yahay Saciid Cabdullaahi Dani in ay arrintaasi ahmiyadda koowaad siiyaan oo ay gacan bir ah ku soo qabtaan cidii geysatay Jaafar Macalin Maxamed Puntland TV Garowe